بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلامة أصحابتي قالقة ميل كسو شوكتان ugu horeynta haddii ay tahay markii ugu horeyso oo channelkeena aad soo booqato fadlan subscribe noo saar u sheer gari asxaabtaada iyo ehladaada si ay uga faa'iideystaan. asxaabi waxaan rabaa inaan sameeyo biiso laba xabo biiso ayaan rabaa inaan galabta aan kasoo tuuro. waxa igu jira meeshan waa biyo cad oo caadi ah oo qabow ah oo aanan kululayn waaye. waxaan ku darsanayaa waa leebato ama yisti hadba saad u taqaano. waxaan ku darsanayaa qaadadii labaad oo maaragtay aanan buuxin waa qaado iyo haaf ayaan ku darsanayaa. waxa kaleeto ku darsanayaa sonkor waa 2 qaado iyo haaf yar ayaan ku darsaday. waan u sugaynaa asxaabteeda qaaliga inta ay nooga soo maartay sida ay nooga soo fuureyso ama ay nooga qamiireyso ayaan wax yar maaragtay aan dabool soo yar saaranayaa. kadibna waan isku soo noqonaynaa markii ay noo soo qabirtay yastideena insha allah باذن الله كريم. waa inoo soo qamiirtay asxaabay leebatadeena way noo soo qamiirtay. waxaan ku darsanayaa haddana ukun kuma aanan darin markii horeeto oo waxaan rabay inay marka hore ay ii soo qamiirto ayaan rabay leebatada oo kaliya. waxa kale inta ku darsanayaa saliid ayadana qasab ma aha waad iska reebi kartaa saliida ama waad iska deyn kartaa bal anigu aan ku darsada hadeertaan. waxa kale aan ku darsanayaa cusbo waxa kale aan ku darsaday caanihii koobka igu jiray ayaan maaragtay aan qayb kaga darsaday. haddana burka ayaan ku darsanayaa kuma wada shubayo burka kiilada qayb ayaan ka reebanayaa si aan ugu xishto oo qaybta maaragtay aan hadhowta aan ugu xishto ayaan kiska reebtay. biisada aan sameynayana ma badno oo waa 2 xabo oo kaliyeeto. qasab waaye burka kiilada maaragtay ma wada qasaysid oo ina qayb ka reebtid. gacanta ayaan ku xashanayaa la mashiin xoog ayaa la isticmaalayaa insha allah. waxaan ku darsanayaa caanihii ilaa qiyaasta aan ka rabo burka maaragtay qoyaanka uu iga gaaro. caanaha ayaan maaragtay aan ku shubanayaa gacanta ayaan ku soo xashanayaa si fiican ayaan isku soo dhexgelinayaa. waan soo xashanayaa waana soo daboolanayaa insha allah. waa noo soo qamiiray burkeeni sidaas ayuu noogu soo qamiiray ما شاء الله. بعد أن أفكر صحرته يعني كفي ذايا si aan u fidsano sida quruxda badan ay noogu soo qamiiray. waxaa la rabaa in maaragtay ay biisada ku qamiirto haddii aysan ku qamiirin kuma fiicnaanayso oo maaragtay burka wax soo fuuray ku noqon maayo hadhow mana ay kala kacayso. marka waxaa fiican inay ku qamiirto haddana waan fidsanaynaa. labada qaybood ayaan kasoo dhigtay oo burkeena waan soo kala goostay 2 xabo ayaan ka dhigayaa sida hore idinku soo sheegay in aan ka dibay 2 xabo oo biise oo kiilada maaragtay aan wada qasaynin aan qayb ka reebay. waana fidsanayaa haddana sidaas ayaan fidsanayaa asxaabay. ma fiicna inuu burka maaragtay oo khafiif u ka noqdo mana fiicna inuu wax buuran oo ka noqdo oo hadhow markii aad oofin ku soo bixiso yacni korra kaaga soo guduuto hadhowna aad istiraado cayriin ayuu gudaha uu ka yahay oo burka dhexda uu cayriin uu ka noqdaa ma fiicno. qiyaas fiican oo maaragtay adiguba aad garanaysid oo aadan ka dhigin maaragtay wax khafiif aadan ka dhigin ka dhigo. khafiif hadaad ka dhigatana asagana waa uu ka adkaanaya oo burka dhow wuxuu noqonayaa wax maaragtay alwaax oo kaleeto oo aad u adag ayuu ka noqonayaa. geesaha ka simo si uu saxanku kula ekaado haddii aad saxan round aad ku gashanaysid adigu markaas
haddii aad saxan dheer aad ku gashanaysidna hadda sida uu saxan kuu galayo baad ka dhiganaysaa. gacanta ayaan ku tijaabinayaa inuu iga buuran yahay oo burka uu saaid u buurtay iyo inuu xoogaa khafiif iga noqday. ayaan gacantayda ku tijaabinayaa. maasha Allah waa ii fiican yahay. haddana alwaax ayaan qaadanayaa gacantayda calaamadaha uu yeeshay burka maadaama uu jilicsan yahay ayaan ka baabiinayaa oo kaas saas ayaan ka dhigtay waan qiyaasaan rabay. saxanka ayaan soo saaray saxankii ayaan soo saartay. haddana waan durduranayaa. waxaan kusoo durduranayaa fargeetadan. saas ayaan tush uga soo dhiganayaa. waxaan rabaa inay tomaatada aan marinayo ay hoos iigu gasho. basashana hadhow maaragtay carafteeda iyo jiiskaba ay maaragtay markii ay dabka gashay ay maaragtay ay soo gaaraan ayadana si ay burka uu hoos kaaga soo bilaabo uu kaaga soo bislaado aan dhahe maaragtay uu markaas kor kuugu soo baxo. wuxuu kaa caawinayaa inuu dabka hoose maaragtay uu kor u soo baxo burkana markaas dhexda kaaga guduuto. markaas u dulduleelisid. haddii aad rabtana waa iska dayn kartaa. waa ay ku jiraan biisooyin kale oo aniguba aanan dulduleelinin iyo kuwa saan oo kaleeta aan u dulduleeliyay. bal isku dhadhan ma aha oo yaanyada ayaa gudaha ka galayso. yaanyada marka ay gudaha ka gashaan dee dabcan dhanaan bay keenaysaa oo maaragtay burkii keligiis meesha uu ka noqon lahaa markii burkii lafta laga galo. waa dareemi kartaa adigaba inay maaragtay dhacaanka oo macaan uu keenayo oo maaragtay ay ku macaanaanayso. waxaan filayaa in qofkii caqli lehba uu dareemi karo oo ayna isku mid aysan ahayn. haddana waxaan ku bilaabanayaa yaanyadeeni. tomaatada aan ku shubanayo waa ketchup. yaanyo waad karsan kartaa. biisa kaleeto oo yaanyada aan usoo kariyay oo yaanyada intaan sidii dalac bilaashka camal oo kale aan usoo kariyay. markaas wax yar oo sokor aan ku daray si ay maaragtay xoogaa macaan yara u yeelato. way ku jirtaa channelkeena. haddii aadan haysanin tomaatada ama ketchupta wax qasaba ma ay aha. yaanyadaad shiidee waad qaalaynaysaa sida oo maaragtay dalac bilaashka oo kaleeto markay kuugu soo qalaysanto ayaa dhag ku siisanaysaa. marka qasab maaha inaa tomaato oo keliya aad raadsatid. saas baad u samaysan kartaa asxaabta. yaanyada ayaan geesaha ka gaarsiinayaa fiidaha oo dhan ayaan ka gaarsiinayaa. fiidahaasna ma fiicno maaragtay inaad ka gaarsiisid burka qaybtaas ku banaan. waxa fiican inaad dareentid inuu kuu bislaaday li'aana haddii yaanyadii meel kasta aad ka gaarsiisid oo ay isla guduudato waxay noqonay inaad burkii kor u qaadid ayay noqonaysaa. markaas saas ayaa haddana hilibkii aan ugu soo daadsanayaa. waa chickenkii oo aan soo karsaday asagana spiceska aan maaragtay kusoo darsaday spacesyo fara badan. haddii aad rabtidna waa iska dayni kartaa oo maaragtay gaas iyo aad ka baqaysid spaceska badan ama uu ku dhibayo dee hilibka oo keligiisaba waa karsan kartaa. hilibkeena ayaan saas ugu soo daadsanayaa. maasha Allah tabaaraka Allah. sidaas yaroo tartiib ugu soo shubo oo maaragtay aadan hal mar aadan ku wada shubin hal meel aadan kaga shubin maaragtay si yar oo qiyaasta saxanka ay u wada gaarto. xabadba meel uga saar ama qaybo meel ka saar. waxaan kusoo bilowday basasha. haddana basasha cadeed ayaan kusoo bilowday. waxaa meeshaan iigu jira waa 3 barbarooni oo kala nooca iyo basasha cadeed. ugu horeynta waxaan saaranayaa basasha cad maaragtay ayaan gaarsiinayaa
sifa ay xabadba meel ay uga fuusho. Ma rabo inaan hal mar oo keliya aan ku wada shubo si ay hal gees keliya maaragtay iga fadhiisato, laakiin saasaan ugu soo shubanayaa. xabadba meelaan uga soo saaranayaa basasha cad carafna waa ay kuu keenaysaa. koley anigana waa ay ila macaan tahay. haddii aysan adigu kula macaaneyn ama ilmahaagu ayna cuni karin ama adigaba shaqsi ahaantaada aada rabin, waa iska dayni kartaa oo basasha waad iska dhaafi kartaa. hilibka oo keliya markaad ku shubato ayaa jiiska aada saaran kartaa. sida lagu gado meelaha la gadaba kuma daraan basal intooda badan. aniga intaan arkay intay hilibka saartaan ayay jiiska dusha kaga shubaan oo maaragtay ay saas ku geliyaan. marka dabcan haddii aad rabtid saas adigu waad yeelan kartaa, laakiin aniga basasha carafteeda ayaaban ka helayba. marka saasaan basasha cad aan usoo saartaa. basasha cadna basasha guduudka waa ay ka jilicsantahay oo tan cad ee dhaqso waa ay baaba-aysaa. marka haddii aad saaratid waxaad arkaysaa 5 minutes iyadoo dhammaatay. markaan basasha saa ugu bogto ayaa haddana waxaan kusoo bilaabay barbaroonigii yelowga ahaa ayaan kusoo bilaabay. haddana waxaan u saaranayaa sidii basashii oo kaleeta ayaan xabadba meel saaraya. asagana si qiyaas ayaan xabadba meel u saaraya. haddana waa kii guduudna kii cagaarka ahaa ayaan haddana soo saartay. sidii aan basashii aan ugu soo hagaajiyay ayaan barbaroonigana maaragtay xabadba meel aan uga soo saaraya asna oo aan uga soo hagaajinayaa. kadibna jiiska ayaan ku bilowday. jiiska ayaan dusha kaga shubanayaa. jiiska biisada ay ka jiis badan tahay ayay ka macaan badan tahay. haddii jiiska aad ku badsatid aada ayay kuugu macaanaanaysaa, oo midda jiiska aad ku yaraysay waxaa ka macaanaanaysa midka aad jiiska aad ka badisay. maasha allah saas ayaan ugu soo shubtay jiiskeenii. geesaha ayaan rabaa inaan ka kala gaarsiiyo asagana oo saasaan ugu firaaqa gacanta. waxaan rabaa in geesaha intii maaragtay yaanyada aan gaarsiiyo oo dhan aan gaarsiiyo jiiskana. asxaabi waa aan kusoo dhamaystay. sidaan ayay igu soo baxday quruxda badan markii aan kusoo dhameeyay jiiskeenii. waxaan guduudan aan dusha kaga shubayna wax yar oo yaanyo ama tomaate ayaan dusha kaga shubay. haddana hufinka ayaan gashanaynaa. sidaas ayay noogu soo baxday biisadeeni quruxda badan markii aan hufinka kasoo saaray. haddana waa aan jaranaynaa. waxaan ku jarayaa bahashii lagu goynayay biisada ayaan ku jarayaa. bismillaah. maasha allah saas ayaa noogu soo baxday markii aan maaragtay soo jartay. waxaan kasoo bixinayaa 2 xabo ayaan saxan kasoo bixinayaa oo saxankan aan gees kasoo dhigta aan kusoo diyaarsanayaa. waaw maasha allah tabaarakallah. hadda carafta kasoo kacaysana basashii iyo barbaroonigii iyo markay isqabteen maaragtay tomaatadii waxaa kasoo kacaysa caraf aan inaba caadi ahayn. haddii kuugu horeyso haddii ay tahay markii ugu horeyso oo channelkeena aada soo booqato fadlan subscribe noo saar. hadda hata asxaabta hore noola sii joogtana waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. waad ku mahadsan tahay daawashada videogan iyo waqtigaada siinaysa. bye.